Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Sabtidii khudbad ka horjeediyay xildhibaanada Golaha Shacabka kadib fashilkii ku yimid shirkii dhuusamareeb ee ula lahaa madaxda dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir. Shirka natiijo la'aanta kusoo dhammaaday oo kusoo gabagaboobay magaalada dhuusamareeb ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa in laga heshiiyo khilaafka hareeyay fulitaanka heshiiskii 17 Sebteembar ee ay dhinacyadu ku heshiiyeen in la qabto doorasho dadban ka hor inta uusan dhammaanin muddaxileedka madaxweynaha. Muddaxileedka madaxweynaha ayaa sida uu dastuurku qabo waxa uu ka egyahay 8 Febraayo oo ku beegan maalinta berrito ah, inkastoo aan weli lagu heshiinin nidaam doorasho. Waxaa xitaa ilaa hadda aanan qabsoomin doorashada baarlamaanka oo sharcigeedu ahaa inay dhacdo bishii aynu soo dhaafnay Diseembar. Madaxweynaha ayaa sheegay inuusan jiri doonin firaaq dastuuri ah, balse ma uusan shaacin qaabka looga baaqsan karo firaaqaasi maadaama xilhayntiisii dastuuriga ah ay ku egtahay 8 Febraayo oo berrito ah. Horey ayuu Madaxweyne Farmaajo u sheegay in aanu dooneynin inuu waqtiga dheeraysto. Waqti kororsi ama muddo ku darsasho runtii wax wanaagsan ma aha qof waliba oo la doortay, haddii uu yahay mas'uul goboleed iyo haddii uu yahay mas'uul federaal ah. Waqtiga uu ugu egyahay muddaxileedkiisu waa in uusan maalin ku darsan, maxaa yeelay wax ay abuuraysaa kalsooni darro, waxay noqonaysaa xarig furtay. Haddii qof loogu daro, wax celin kara ma laha. Sidaas darteed ma aha wax qof loogu dan leeyahay, laakiin waa in ay xeer noqoto, ayuu Madaxweyne Farmaajo ka yidhi khudbadda uu qaranka u jeedinayay. Hase yeeshee, weli tuhunka muddo kororsiga meesha ma uusan ka bixin. Golaha murashaxiinta mucaaradka ayaa ka digay in xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ay samaysato muddo kororsi, taa oo ay marar fara badani ku celceliyeen inaysan aqbali doonin. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo hadda ah guddoomiyaha Golaha murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ayaa sheegay inay ka xun yihiin in xilliga dowladdu uu dhammaaday iyadoo aanan wax heshiis ah laga gaarin arrimaha doorashooyinka. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la yeesho kulan ballaaran oo dhinacyadu u dhan yihiin oo looga arrinsanayo xilliga kala guurka haddii uu fashilmo shirka dhuusamareeb muddaxileedka madaxweynaha uu dhammaado. Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ayaa sheegay in dhankooda aysan aqbali doonin wax muddo kororsi ah, tallaabo kasta oo la qaadayna inay ahaato mid ku timaada wada tashi iyo wada oggol oo ah heshiis siyaasadeed. Waxay u muuqatay in shirka fashilmay dhuusamareeb uu ahaa rajada kaliya ee xalka loogu heli lahaa ka hor inta uusan dhammaanin muddaxileedka Madaxweyne Farmaajo, waxaana ay u muuqataa in taasi hadda ay meesha ka baxday. Khudbadda Madaxweyne Farmaajo, haddaad dhageysatay, muddo kororsigu wuxuu ku dhex jiraa hadalkiisa sababtoo ah firaaq ma dhacayo ayuu dhahay. Firaaq haddii uusan dhacaynin, waxaan kororsi ahayn miyaa jira? Ileen doorasho ma dhacayso, ayuu yidhi Professor Fere Cabdi Cilmi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Professor Cabdi Ismaaciil Sanatar oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in waddada furan ay tahay muddo kororsi kooban. Labada gole ee baarlamaanka iyo madaxweynuhu waxay ansixiyeen qaanuun dhigaya in baarlamaanka uu sii joogayo ilaa kan cusub ee la doorto uu fariisanayo. Su'aashu waxay tahay, haddii uu baarlamaanku sii fadhiyo, madaxweynuhu ma sii fadhin doonaa? Anigu waxaan ku talin lahaa baarlamaanku haddii uu sii joogayo in 3 bilood loogu daro waqtiga dowladda, 3daasi bilood madaxweynaha qudhiisu in loo daayo inuu meesha sii joogo, laakiin shuruud lagu xiro aan laga bixi karin, taasi oo noqonaysa in bisha koowaad lagu doorto aqalka sare, bisha labaadna lagu doorto aqalka hoose, halka bisha saddexaadna madaxweynaha lagu doorto, ayuu yidhi Professor Sanatar. Doorashadii sanadii 2016 ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo tii ka horeysay ee sanadii 2016 ee waqtigaasi oo Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweyne ka ahaa dalka, ayaa 2 madaxweyne xilligaasi qaab farsamo ah loogu daray waqtiga kadib markii xilligii loogu ballansanaa in doorashada lagu soo gabagabeeyo ay suuragal noqon weysay. Waxaa sidaas darteed dhacday in muddadaasi waqtiga loogu daray. Tusaale ahaan, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa loogu daray muddo 6 bilood ah, waxaana socday hanaanka doorashada. Wadamada beesha caalamka oo dhowaan qoraal ka soo saaray arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxay ku booriyeen
madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada inay xaliyaan khilaafka ka taagan hanaanka doorashada Soomaaliya isla markaana ay ku saleeyaan wax waliba heshiiskii 17 Sebtembar sanadii aynu soo dhaafnay 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho. Intii uu socday shirkii dhawaan fashilka ku yimid ee kusoo gabagaboobay magaalada Dhuusamareeb ayaa saaxiibada beesha caalamka ee taageera Soomaaliya waxay uga digeen hogaamiyaasha Soomaaliya inay isku raacaan wax garab marsan heshiiskii hore loo gaaray. Tallaabadaasi oo keeni karta sida ay sheegeen dib u dhac ku yimaada hanaanka doorashooyinka iyo dadaalada lagu doonayo in xal waara la gaaro. Waxay ka digeen doorasho qabya iyo sidoo kale hanaan cusub oo hareer marsan heshiisyadii hore.